halkani waa Muqdisho. Sheekadani waxay ku saabsan tahay dhalinyarada wax soo barteen misana shaqo aan haysan. Sheekadani waxay tarjumad buuxda u tahay dhalinta wax soo barteen misana shaqo aan haysan ee ku nool wadanka Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Ninkani aad u jeedaan waa Keenan, ninka la socdana waa saaxiibkiis Keeyo ee isku meel wax ku soo barteen. waxayna isku dayayaan inay ka tahriibaan wadanka. waxay ka mid yihiin dhalinta duruufaha adag wax ku soo bartay isla mar ahaantaana aqoontooda wax shaqo ah ku waayay. ninkan kale u jeedaan magaciisa waa Boqor Daacad, aqoontiisana waa ilaa heer master. wuxuu ka mid yahay dhalinta aqoontooda ku waayay shaqada isla mar ahaantaana danta ay ku kaliftay inuu noqdo cabitaanle. qoftan kale magaceeda waa Niital, bal aan aragno doorka ee sheekadan ku leedahay. ninkan kale u jeedaan magaciisa waa Maxamed Culaad. yaraantiisa ilaa hadda wuxuu jeclaa inuu wax barto balse muusan helin cid garab ku siiso inuu wax barto, sidaas darteed danta waxay ku kaliftay inuu noqdo caseeye. ninkan kale u jeedaan waa Abwaan Anwar, mar walba wuxuu jecel yahay dhalinta xaafadda la degan inuu mar walba wanaaga u sheego, wadada wanaagsanna uu faro. sidani oo ah mid taabanaysa nolosha dhabta ah. waxaa qoraalkeeda iyo alfaadeeda lahaa Abwaan Anwar oo ku magac dheer BKR, waana ninkan aad hadda u jeedaan. bal aan aragno qisadani meesha ay ka bilaaban doonto iyo weliba sida ay u dhammaan doonto.